waxaan rajaynaynaa siyaasadda ka soo bixi doonta 2016 aan filayno anaka inay ahaan doonto mid ka furfuran ama ka ballaaran tii hore u jirtay ahayd ayna soo martay dawladihii tan ka horeeyay waxaan rajaynaynaa security-ga inuu maaragtay ii sheegay hagaago waxaan rajaynaynaa haddii intaas ay hagaagaan waxaa soo kale hagaagi doona caafimaadka rajadayda aad iyo aad ay u fiicanta 2016 maxaa yeelay la tashi badan ayaa la sameeyay waxaa la tashtay maamul goboleedyada waxaa la tashtay dhalinyarada waxaa la tashtay haweenka waxaa la tashtay civil society qof kasta ayaa la tashtay oo Soomaaliya ka mid ah rajadan aad ay u fiicanta maxaa yeelay tan oo kale hore ma dhicin waxaan rajaynayaa maadaama hadda la sii galay 2016 in isbedel badan ka dhaco dhinacyo badan sida waxbarashada sportska oo loo dhiso garoomooyin fiican oo loo keeno tababarayaal fiican oo tababar fiican la siiyo dhalinyarada si wadanka horumar fiican uu gaaro waxaan rajaynayaa 2016 in ardayda waxbarata ay ka badan doonaan inta hadda ay yihiin waxaan rajaynayaa in gabdhaha jaamacadaha dhigtay ay ka badan doonaan inta waqtiyadii dambe hadda u dambeeyay alxamdulillah nabadgelyada iyo xagga ganacsiga aad buu soo fiicnaa wixii hadda ka dambeeya sanadada soo socdana waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idmo inuu sidii kasii fiicnaado nabadgelyadana ay sidii kasii fiicnaato sanadka soo socda hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa in wax soo saarkii dalka uu siyaado sida beeraha iyo xoolaha maalgelinta shisheeyana ay siyaado rajayna 2016 inay noqoto sanad horumar sanad yani dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo dhan walba Soomaalida ay ka horumartay oo aan soo kabsan oo mahadsantahay